عليكم خيار ميل والبود الدنيا ka joogtaan ku soo dhawaada Southern Media Corporation oo mar walba aad ka heshaan wararka xaqiiqooyinka ah siyaasadaha isdiidan iyo kuwa is ogol ee sarasabaynaya geeska Afrika iyo midda caalamkaba waayahay maanta qodobo kala duwan aan rabnaa inaan ka hadalno laakiin qodobka ugu horeeya ee ugu kulul ayaan ka bilaabaynaaba gudoomiyihii deegaanka Awdiinle gobolka Baay ee Mayland isla markaana ciidamada maqaarsiib ku jiray taliye ku xigeenna ku magacawnaa daraawiishta ayaa isa soo dhiibay oo salbalaar isku soo dhiibay warkaasi ma jiro intay ka dhacday maanta oo dhan waana lagu wareeriyay aniga ma arkaysa macnii fariimo badan ay soo dhacay balse laakiin inta life-ka aan ku jirnay caruur uma sheekaynayna annaga dad waaweyn aan wax u sheegaynay markaan meeshaan soo fadhiisano dad waaweyn ayaan wax u sheegaynay war waaweyn aan sheegaynay laakiin marka wixii ay soo baxaan markaas kaliya ma saas may ahayd macallin ma inaad dhahdaan maahan kalaay ma yimaaday iyo ciidan uu wato daraawiishta ma ka soo goostay maqaarsiib ma ka soo goostay nacam uu soo goostay baydhabo joogaa ama ka nax ama ku farax kalaay baydhabo ma yimaaday haa baydhabo yimaad hadda aadan madoobo shir kula jiraa ya kabishi ha warka waa inaad kor ka goosan kartaa maalmahan oo dhan waxaan ku akhrinay casharka waa kugu dheerayn doonaa arrintan kalaay cajalado meeshaan aan ka sheegay ayaan jecelnahay maanta inaan dib idinku celino daruusteenna baydhabo ma kalaay baa yimaaday mise taliya shubaa yimaaday shub baa yimid intaasi ma fahmi kartaa mise ma fahmi kartid ya oo baryahan iyo wixii aan ku akhrinayo bilihii lasoo dhaafay ma kaa baxeen mise propaganda iyo view inaan ku raadsanayaad u haysatay waa qoslaysaa in badanaa qoslaysaa day baydhabo ma kalaayaa yimaaday mise taliya shubaa yimid taliya shub baa yimid inaad fahamtid waaya intaasi gooso macallinka lugay taliya shub baa yimid ay taliya shub baydhabo ma ku aragteen beenuu sheegaayo aad dhiiri doontaa oo ku ogahay laakiin fahamka wax weyn waayo fahamka ma kalaay baa yimid mise taliya shub baa yimid shub baa yimid kalaay ma imaanin inaad fahamtid waay taas waxa socda haddaadan akhrinin dhibaatay leedahay sabuuradda see camal war ma kalaay baa yimid mise taliya shubaa yimaaday ardada maanta waxaan tijaabinayaa inay maahir yihiin casharada inay qaybeen iyo in kalean ogaan karaa war ma kalaay miyaa yimaaday mise taliya shubaa baydhabo yimaaday waxaan ogaan doonaa yacni jaamacaddan ardada ku taxan casharada inay xifdiyeen iyo inaan cidlo ku daalaynin labadaas haddaan kala ogaan doonaa
baydhabo ma taliyasho baa yimaaday mise waxaa yimaaday kalaay yaa yimid mise waa noolan dardareenanatiin waxba lama socotaan idinku ya dadkaan la hadlayaa ma geedaa mise waa dad mise waa dhagxaan yaan la hadlaya aniga ma shubaa yimid mise kalaayaa yimid shubaa yimaaday jawaabta adoonan ku wareerin baydhabo maanta ciidamada waxa keenay yimaaday waa shub kitaabadii shub ee kama dambaysta ahaa ayaad aragteen oo uu la kala baxay shalay miya mise daraad maxaan kuu sheegaya kama dambaysa casharada shub maxaan ku dhahayay 50 nin oo maleeshiyaadka habar gidir ah aan la ogeyn intuu diyaarad xamar ka soo saaray qaarna wadada uu soo mariyay baydhaba hubka la idinka siinaa uu yiri 45 baydhaba uu ku reebay 5 mootooyin uu saaray iyagoo qoryooda sita ayuun baa la arkay iyagoo maqaarsiib dhex fadhiya kuma dhihin markaasaa lagu soo baraarugay waa la qabtay waa la garaacay isagaa soo wactabay taleefanadii raggaasi way idin garab siinayaan hadda ma tooganaynaa ayaa la yidhi wixii waa laga sheegsiiyey la ii daayuu yidhi lafta gareena lala hadlay kir iska dhahwin odaygaasi waxaasoo dhan ma dhinac may kaa mareen adiga meeshaasi waxaa yimaaday saraakiisha iyo askartii taliyasho baa timaaday oo muddo aan kuu sheegay aan ku dhahay taliyasho ciidamadaasi anaa soo xaraynaya ayuu ku yiri xasan sheekh maxamuud aadan madoobe waxaana dullaal ka ahaa shuute nimay dhahaan oo abgaal ah maxkamadda jooga militariga iyo nimay dhahaan mahad salaad oo cayro habar gidir ah oo sirdoonka Soomaaliya jooga labadaasi nin wiil uu dhalay oo Cabdifataax mahad la yiraahdo ayuu wasiirnimo ee federaalka u raadinayay waa ku weynaa la yiri kursiga lafta gareen walaalkii uu ku fadhiyo wiilka hooyadiisu habar gidirta ay tahay aadan lafta gareen oo Sweden ka yimaaday saan qiyaasaya ama Europe xildhibaanka ah oo kursigii mahad xildhibaannimada intuusan asluub noqon taliye asluub ku fadhiyay ayuu yiri hala iga kiciyo reer lafta gareen maba arki karo habar gidiraa difaacday wiilkan anaga abti oo ay dhaheen iska dhaaf agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya ayaan wiilkaaga u haynaa wax kale ma u hayno jagadaasuu ku gatay sida awgeed ciidanka anaa soo xareynayo yiri shuute iyo mahad salaad markay dhaheen xareynta ciidankaasi lafta gareen inaan kala tashano soo ma ahan wuxuu ku yiri lafta gareen meesha waxba kama ahan waxa weeye anaa gacanta ku hay ciidamadaas anaana soo xareynaya hawshaasi ii dhaafa intaan kaaga sheegay he okay baydhabo lafta gareen markuu imaanay yaa gacanta ku hayay dadka waxbaan u noqonaya baydhabo lafta gareen intuusan imaanin taliyasho baa haystay saraakiisha ciidamada waagii 6 gobol la dhisay taliyaha booliiska gobolka Baay taliyasho buu ahaa ee dawladda federaalka 2012 u fiirsaya burburinta maamulkii 6 gobol 2014 taliyasho 6 gobol uu taageersanaa diilka in baydhabo isaga la siiyo isbaaro uu dhigto cashuurta uu qaato 3 gobol in uu taageero shuruudaas lagu la galay waa xilligaasi marka saraakiishan uu samaystay taliyihii qaybta isaga uu ku fadhiyay qof uu ku fariisiyay saldhigii qof uu geystay tiim uu dhistay isaga gacanta ku haaya
وكوش قيسنايو ورحوينا انت ما قرأتي مس ما قرانين ماذا اسكريجي سوءها جيتك صدنكو تاغنان جري وضاعد كلاي markaasuu samaystay oo diin loo geeyay sidoo kale aamin madaruur waxa weeye booskiisuu geeyay mukhtaar dugudow oo isaguna hadamo gaaljeel ah abtiroona asaan rajaynayo baarkaysa markaasuu macnaheedu geeyay saldhiga dugudow meeqasan uu joogay ha dhakhtar ma u qoray isagii aamin dhowr iyo 10 sano joogeen shariif xasan diilka lala galay waxa weeye Etoobiyaanka xeradiisu deganaa markii mashaariic ay jirto imaan waraaqo wixii soo fermaysan baydhabana taliyashuba haystay sidaas ay ahayd baasha taliyashub xilligaas dagaal wuxuu la galay saraakiishii kale ee macnaheedu isaga ka raay doonayd sida taliyaha qaybta 6aad Ibrahim Yarow nin la dhaho ahaa yatima cadde oo garra iyo elay ah farmaajo markuu yimaado watii uu la dagaalamay حتى الليبان يرو نينكا ugu sareey maxkamadda federaalka militariga xilka la iga qaado dhahay jawaarina kursi xildhibaannimaha loo diido waxaan dagaalka ma dhaweyn okay taliyashub shariif xasan suu joogay markuu baxayay baladka isaga haystay waa kan robow iyo abdicasiis lafta gareen iyo calool kuus iyo team badan dawladii farmaajo ay keensatay robo burufiye loo soo raray lafta gareen la kadalika laakiin lafta gareena meesha la rabay waa tan taliyashub u lahaa kun askariya ii joogto kunna way ii soo socotaa haddii meeshaan robo wax ka noqdo garaadadana waa la jarjaraya isagaa dadka burbursanaya dameer dhintay baa tiin markuu dhahayahay isagaa haystay beledka yaa awoodu ku haystay ciduu rabo weeraray qofku rabo dilay cid ka hadli kartay ma jirin lafta gareen waa la keenay kursiga waa la saaray saraakiilna ma lahayn ciidamada ma lahayn meel diyaarsan oo macnaheedu nin uu haysto oo shariif xasan inta macnaheedu ka baxay ayuunba booski lagu bedelay saasuu ku yimaada lafta gareen waxaan dhacayo dhan ma ogeyn shaqana kuma lahayn يا هيستي بيدبو تليا شو تليا سالدقة تليا قيبتا إذا مضى كل إساقا هيستي بيدبو إساقا هيستي that's why وكودي ردي إنو ديجلي مرفلور دان دنبيل وكسو قادو ديل ولقلو هوي ويرادو عنقا حولا ويدين مايو جيم كينا فهمتي دواي إصلاحات دانا لفتا قرين مركا لساراي حسبي جي اس بي يادتك قليه تليشوب لفتا قرين يا خصبي تليشوب